بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال waxa la soo gaaray amintii aad daawan jirteen wixii war naga soo gaaray geeyga Soomaaliya doctor iyo caalamka intiisa kalaba. Halka aad warkaasi si toos ah kala socotaan waa xarunta guud ee telefishinka caalamka ee badda 24 TV ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda deegaanada Somaliland. haddii baa raxmaankii raali ka noqdo waxa qodobada warka idin la socodsiinaya anigu waa Naasir Cabdilqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame. qodobada aad warka ay ku daawan doontaan kuwa ugu doorka roon leh waxa kamid ah xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay ciidamo goostay isla markaasina ku biiray maamul goboleedka Puntland. 35 arday oo ka qalin jabiyay jaamacadda Hargeysa University isla markaasina ka bartay culuumta saxaafadda ayaa dareenkooda la wadaagay telefishinka caalamiga ee badda 24 TV. ashiray isugu yimaadeen gudoomiyaasha waxbarashada Somaliland ayaa maanta ka furmay gobolka Togdheer. mid ka mid ah musharaxiinta doorashooyinka soo socda ee ka dhacaya dalka ayaa madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu tanaasul sameeyo si ayna mar kale u dhicin doorashooyinku. wasiirka wasaaradda amniga maamul goboleedka Galmudug ayaa shir gudoomiyay shir looga hadlayo amniga caasimadda Dhuusamareeb. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku gacan sayray dalabyo uga imanaya dunida oo ku saabsan joojinta ciidamadiisu ay ka wadaan waqooyiga dalka Suuriya. daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warka imika haatan isku diyaariyo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan.